بسم الله أرت بلدوين ومجالوين ومجالوين كوجور دنك وحبرشة وحلا هذا إلا تضبط دكس سرع دور أفرد طبعا دور طبعا هذه دكس وصدحة سدح جامعات وعندي كرارت وحبرشة مركل ده بلدوين ما شاء الله مكوب النوع معناها ضدك أنت بدن دنيار وحي برتان هذا وحبرشة حق الله سارة وانا عدد بدن أيام مرة بقى سوقنا نجيب سكولا دوكسي قصرة هذا الحمد لله عايش جامعة خاصة أنا هذا جامعة أنا توكل هيران يونيفرسيتي أو كلية بدن بحس سنة كان جعل إن كلية بدن كصادرته وهاك صعد ليه كلا بلدين وحبرشة أي أسرة ساعة ما كله وحبرشة ذلك الصومالية وحان أجنها جامعة أنت عن لقفن بلدوين جامعة هذا كويا الله حمر وكله بور موكله عددو بدن waxay ma jireen baldoyne marka baldoyne xaq waxbarashada ma sha Allah dadku waxa moodaa in dhalinyarada ay aad u danayaan xaq waxbarashada waayo qofku waa inuu wax barto dadkana bulshadan waxay dadku u hormartaa inay wax barato dad ka ilbaxsan ama ka hormarsan haday aragtid waa ay ka waxbarashada xaqeeda ay ku dadaalaan waa u jeeda Djibouti waa hormarsan tahay waa dadkeedana waxbay bartaan waa waxa nolosha dhan waxa asaas ku ah waxbarashada jaamacadda Beledweyne ayaad ka hadashay Hiiraan University ee magaalada Beledweyne ku taala marka jaamacadda gaar ahaan markaad warbixin gudiga siiso hadda maxaa lagu bartaa ardada dhigatana cadadooda ma kor ma ka haysa ma la socota horta waxay maraysaa sanadkii labaad oo ay hadda gabagaboobay waxaa lagu furay 3 kuliyadood waxaa dhigata 149 arday hadda waxaa la jecel yahay in lagu daro kuliyada beeraha oo hadda aan Soomaaliya aysan لهين معنا كونفرت الصومالي وكلا إنسان كولين يكلية دبيئة أي على جعلها إن معمول كقدران وحاجة تصدق كلية دود وكلية دا جنرال نيرسين يكلية دا IT يكلية الشريعة فرقسام راد كلية دا أو عافمات أو نيرسين كا وحبذنا أي بردوين كترتي أيهم ولي عن دمين أو سنة اللي بعد كجرو أيا إن وحن مهدو عنا هي هذا مساف أو قراتي إن إسبتال كبرات وصوبيان taasoo waxay keentay in shaqadii oo si badan isbitaalkii u socoto service-kii oo shaqaalaha oo bato waayo dad arday oo theory leh oo u baahan oo kaliya practical ay maaday shaqadiina ay ku dadaalayeen inaysan halaabin waayo qofku markii uu wax barto hadii uu hadan oo helo practical waa wax weyn aad ayeen dadka reer Beledweyne u soo dhaweeyeen waana mirihii ugu horeeyay ee jaamacadda Hiiraan laga helo waayo qof kasta Beledweyne joogo ama bukaan bukaan oo joogo kale isbitaalka Beledweyne waa diray si fiican loola macaamilo waayo wixii ay soo barteen ay ku soo biyaan marka mirihii oo Hiiraan waxaan dhihi karaa ayadoo 2 sano jirsatay jaamacadda ayaa la helay kuliyadaha kale insha Allah ayadana sidoo kale waa la heli doonaa kuliyada shariicada kale ma sha Allah dad culimo ah ayaa dhigto oo aad wax uga bartay kuliyada IT sidoo kale rag injineer ah ka soo socdo oo hadda qaarkood shirkadaha magaalada u shaqeeyo oo wax badan ka bedelay marka insha Allah Beledweyne waxaan rajaynayaa 4 sanado soo socoto kuliyada jaamacadda Hiiraan inay wax weyn ka tali doonto oo isbedel weyn ay ku soo bin doonto kuliyada cusubna lagu dari doono insha Allah waxaan ka rajaynayaa maamulka sanadan waa rajaynaa Ilaahay dooyiraad waayo waa jaamacadda Hiiraan waxay jaamacadaha kale ugu duwan tahay waa jaamacad bulshada ay leedahay ma ahan private ma ahan cid qaas wala ma lahan marka maadaama private ay special macnaha ay sanayna dadkiina ay ka dhaxayso waxa moodaa inay aad u socoto وانا waxaan aad u mahad celinaa ragii aasaasay oo furay iyo ragga hadda jecelna macnaha mar walba inay horumarkeeda ka qayb qaataan waxaan aad u faraxsanahay professor dhaqane oo ah hormuudka jaamacadda ee qurbaha oo hadda mar dhow asiga iyo marwadiisa oo ayadana macluumaad ka ahayd jaamacadda Hiiraan iyo rag kale oo professor ah inay sanad dugsiyeedkan cusub oo 1 September wixii ka dambeeyay ay maan doonaan jaamacadda wax ka dhigata aadan ugu faraxsanahay taas waa gartay raaxay magaalada kuleyba wax badan baad ka ogtahay jaamacaddana waa muhiim oo hadda waxaan la socdaa inay tahay dhaqaale laga ururiyay iskana ururiyeen dad reer Hiiraan oo muxsiniin ah oo dhisay jaamacadda socodka jaamacadda inay sii socoto haba yaraatay cid aad la xiriirteen oo kale oo dhaqaalaha ka yimaada bulshada ma aha dhaqaale kale oo la helo ma jira intaad ka warayso horta bulshada u helan especially qurba joogta oo u dhalatay gobolka ayaa ah kuwa hadda ay ku tiirsantaa jaamacadda ayaga ayaana mar walba ka saacid waxay u baahan tahay هذا for example دور بالكور waxay u baahatay jaamacadda maadaama ay jaamacadda magaalada meel ka baxsan ku taal gaadiid u baahatay
rag dhalinyaro ah oo yaryar weliba ayaa isku taxalluujiyay inay wax ka qabtaan baahidaas wayna ka qabteen wayna ku mahadsan yihiin marka gacan badan ay leedahay Hiiraan oo wax u qaban doonto Ilaahay haduu yiraahdo haddana processkeeda oo socdo sida macallimiinta oo kale iyo buugaagta oo kale marka waa dad badan ku tiirsantay leedahay jaamacadda Hiiraan dad badan oo maqan waana ka rajaynaynaa insha Allah anaga gudaha joognana waxaan ku talagalaynaa mar walba inaan wadno sidii aan u wadnayna aan u wada doono Ilaahay haduu yiraahdo waayo waa mustaqbalka kaliya aan haysano jaamacadda Hiiraan waan ku dadaalayna